adkaysan weyday dhibaatooyinka dunida ee isdaba socda. Aabaheed ayay u tagtay, waxayna u sheegtay inay u dulqaadan kari weyday dhibaatooyinka nolosha, oo markay mid ka baxdaba dhibaato kale ay ku furmayso. Aabihii markuu gabadhiisa dhageystay, wuxuu u kaxeeyey xagga jikada ama matbaxa guriga. Wuxuu soo qaatay 3 weel oo mid walba biyo ka buuxaan. 3dii weel ayuu dabka saaray. Weel wuxuu ku riday kaarooto, weelna wuxuu ku riday ukun, weelna wuxuu ku shubay qaxwe. In muddo ah kadib biyihii way karkareen, wixii ku jirayna way bislaadeen. Kadib ayuu 3dii weel dabka ka dejiyey, wuxuuna u sheegay waxa uu u dan lahaa. Wuxuu yiri, 3dan walxood ee aan dabka saaray, dhibka 3doodaba haleelay wuxuu ahaa biyo karkaraya. Mid walba wuxuu uga falceliyey qaab ka duwan kuwii kale. Kaarootada markii hore way adkayd, laakiin markii dhibaato la kulantay way daciiftay. Ukunta qolof adag ayay kor ku lahayd, gudahana qalbi jilicsan. Markii dhibaato la kulantayna qalbigeeda ayaa adkaaday oo isbedelay. Laakiin qaxwuhu markuu dhibaatada la kulmay, wuxuu isku dayay inuu dhibaatadaas xalliyo, wuuna ku guuleystay oo biyihii ayuu bedelay oo ka dhigay qaxwe faa'iido leh. Marka adigu fakar, markay dhibaato ku asiibto, ma waxaad tahay kaarootada oo kale oo markay dhibaato qabsato daciif noqota, mise waxaad tahay sida ukunta oo markay dhibaato qabsato kor aan laga dareemeyn balse gudaheeda isbedesha, mise waxaad tahay sida qaxwaha oo kale oo biyaha karkariya bedela, asalka dhibaatada haysata ka dhigta biyo dhadhan fiican leh. Haddaba daawada dulucda sheekadu waxay tahay, adduunyada intaad nooshahay dhibaatooyin badan ayaad la kulmaysaa. Waxaad isku daydaa in dhibaatada aad qaab fudud uga faa'iidaysato, adiguna aad beddesho intaysan iyadu ku beddelin, saameyn xunna aysan kugu yeelan. Haddaba daawada, intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena gaarka ahaa. Hadduu barnaamijkani ku cajab geliyey, fadlan like dheh, subscribe na saar channelkeena.